siminaarkani ayaa waxaa ka qayb qaadanaya muddo 8 bilood ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar waxaana si wada jir ah u soo qaban qaabiyay maamulka Hirshabelle gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar iyo hay'adda Wako waxaana maanta ugu dambeyntii siminaarkaasi loo soo gabagabeeyay qaybihii bulshada ka qayb qaadanayay ay ugu horeeyaan duubabka dhaqanka waxayna si wada jir ah u soo saareen buug ay ugu magac dareen bandhiga dhaqameedka degmada Jowhar waxayna tilmaameen in buugani uusan khilaafsanayn shariicada islaamka qaybihi kala duwanaa ka soo qayb gala siminaarkani gunaanadkiisa ayaa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Mahad Jaamac Salaad oo kamid ah howlwadeenada hay'adda Wako ayaa ugu horeyntii hadaladiisii waxaa kamid ay isu keentay bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiin ka socota maamulka xillihiisa kala duwan ee Hirshabelle iyo heer degmo iyo heer gobol sidoo kaleeto hay'addu waxay samaysay oo xogtaas markay samaysay kadib waxay qortay xeerkii ayagoo markaas fuuweyn kaliya ahayd laakiin xeerkan ay ka yimaadeen ayaan halkaas ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Ahmed Siid iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca arrimaha bulshada Maxamed Sugaal Cusmaan waxayna tilmaameen buugani in uusan khilaafsanayn shariicada islaamka ay u taageersan yihiin horta shariicada islaamku maxay ka qabtaa in odayaasha dhaqanka ay xukun ama garsoor soo saaraan maxay ka qabtaa waxay ka qabtaa shariicada islaamku sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku yiri waa adlin minkum kuwa caadiliinta u saaxiibay oo idinka kamid ah kuwa caadiliinta u saaxiibay oo idinka kamid ah waxa lagu jeedaa nabadoonada waxaad ogtahay bini'aadamka intuu noolaay guud ahaan caalamka oo dhan waa wada deris waxa u dhaxeeya qaynuun iyo xeer ay sumsadeen barnaamijkan marka isaga duub balaas marka la leeyahay waa tiyo la casriyey duubabku horey hawshaan u wateen waxaa lagu daray balaas macnihiisa lagu daray dhallinyaradii iyo haweenkii ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka haweenka dhallaanka xuquuqul insaanka Saacdiin Maxamed Nuur Saacide Buris maanta heerka ugu dambeeyay oo nolosha bini'aadanka ka dhinayd sida aan anaga qabno ka wasaarad ahaan wasaaradda haweenka Soomaalidu waxay tiraahdaa midigtoo macin mal hadday bidixdu maqan tahay haddii ay taladii iyadii iyo wiilkeedii iyo odagiiba ay meel isla fadhiistaan wanaagaas hay-addii iyo macallimiintii juhdiga badan kasoo bixisay buuggaan keentay waxaan leenahay waxay keentay meel laga ambaqaadi karo Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed caasimad gobolka Hirshabelle magaalada Jowhar.